annagu waxaan nahay dad isku mid ah waxaan nahay dad isku diin ah waxaan nahay dad isku dhaqan ah waxaan nahay dad aad iyo aad u caqli badan waxaan nahay dad aad iyo aad u firfircoon waxaan ku noolnaa meesha ugu fiican adduunka khayraadka adduunkana waa haysanaa afartii sano ee uu dalku hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa kor u kacay dareenka wadannimo ee dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa annaga haddaanahay dumarka Soomaaliyeed waxaan ku taami jirnay mararka qaarkood marka ay dadka maxaabiista dhalinyarada xabsiyada ku xiran ay nala soo hadlaan aan la ilmeyno oo aan aaminsanahay wali inay in badan jiraan inay noqoto xukuumaddii ku guuleysatay hooyo iyo ubadkeedii kala irdhoobay iswaayay ee aan is sugaynin inay suurto galiyaan anoo daadan jira oo hooya inaan waligay arkin madaxweyne Soomaaliya ee waddankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweyneyga waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo dhawow gaalkacyo galmudug ma arag sawiradiisa inaan arko ma ahan aniga leef ma arag maanta aad baan faraxsanahay maanta sanadkaygu waa 33 sano waxaan aad u taageeraa ugu faraxsanahay maanta arka madaxweyne farmaajo kaasoo waliga aan arag inta aniga aan dhashay wax madaxa ma arag mana kana horeysa kana dambaysa wadaniyiinta idinka aasaas u ah aasaaskii waa idinka oo aan ka bilownay gobolka Banaadir oo aan doonayno dalkoo dhan inaan ku shaacino aan gaarsiino meel walba oo xitaa aan gaarsiino qurbaha Soomaalida joogta oo qof walba oo Soomaaliya uu isxilqaankan uu qayb ka noqdo afartii sano ee la soo dhaafay waxa soo laabtay maqaamka dalka iyo danaynta caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyadoo ay sare u kacday rajada ah in waddanku cagihiisa dib isugu taago isla markaasna dib u soo ceshado kaalintii bulshada caalamka sidoo kale waxa sare u kacay afartii sano ee la soo dhaafay tartanka iyo loolanka loogu jiro sidii saaxiib loola noqon lahaa Soomaaliya ama wax loola qabsan lahaa iyadoo dawladaha qaarna ay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalkan soo kabashada ku jira si ay danahooda gaarka ah u meel marsadaan taasi oo ay si adag isaga difaacday dawladda Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta ayaa cambaaraysay falkii diyaarad rayd ah oo toddobaadkan iyadoo lacag sida mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Villa Soomaaliya oo Nicholas Haysom wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegtay in uusan Soomaaliya ku dhex shaqayn karin dawlad kastoo ay soo faragelisay walaalayaal way ku khasaari doontaa damacooda gurracanna waa lumi doonaa ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto dal kale oo kasta fariin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonnimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaana waxaan rabaa fariintaa inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmar ah ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxaa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan afartii sano la soo dhaafay dawladdu uu hogaamiyey mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ahmiyadda koowaad iyo ahmiyadda labaadba siiyey dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee tababarka waa ogyihiin inaad qaadateen tababarka noocyada ugu dambeeyay insha Allah waa guuleysanaynaa waxaana dalkiina iyo dadkiina u soo hooyn doontaan guul waxaa dadkiina iyo dalkiina u soo hooyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dawlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idinla nahay wax alla wixii karaankeenna ah oo tabarteenna ah waan ku khasbannahay inaan dalkan aan dib gacantii ummadda Soomaaliyeed ugu soo celinno inaan dib ciidanka qalabkiisa ugu soo celinno annagu diyaar waxaan idinla nahay wax alla wixii aad u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guulaysan karno wax alla waddankan aan nabad uga dhigi karno wax alla waddankan aan horumar ku gelin karno inaan sameeyno waa naga go'an tahay
waxaa lagu xantaa ciidanka xoogga markaan la sheekaystay ajnabi amisom iyo beesha caalamka iyo cid walbaba inaad tihiin geesiyiin. dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isbedel ku samaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka oo markii hore ahayd mid aan lahayn aragti iyo istiraatiijiyad ku aadan kaalinta Soomaaliya ee fagaarayaasha adduunka iyo halka ay taalo masaalixda Soomaaliya. Excellencies, ladies and gentlemen, please welcome the President of the Federal Government of the Republic of Somalia. Thank you, Mr. Chairman. Excellencies, ladies and gentlemen, Peace and Security Council has submitted an outstanding report. mudane gudoomiye Cyril Ramaphosa madaxda kale marwooyin iyo mudanayaal guddiga nabadda iyo amnigu waxa ay soo gudbiyeen warbixin aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan adkeeyo inay Soomaaliya tusaale fiican u tahay in qoryaha la dhigo maxaa yeelay haddii ay xasilooni buuxa hesho waxa ay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xooggan oo door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda. Mr. President, honorable head of states and governments, dignitaries and ladies and gentlemen. mudane madaxweyne madaxda sharafta leh wufuudda mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan hadal ka jeediyo fadhiga 74 ee shirweynaha qaramada midoobay waxaan si dhab ah u aaminsanahay in shirweynahani uu qayb lixaad leh ka qaato in la helo dadaalo dhinacyo badan oo ku aadan ciribtirka saboolnimada. We are very pleased that the court found that it had jurisdiction to resolve the dispute and that is scheduled final hearing on the merit of the case for the first week of November this year. Somalia, as a member of the United Nations and a party to the statute of the court, is committed to seeing this judicial settlement process through to its end. Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court. madaxweyne Farmaajo waxa uu iska diiday in dawladdu ay laaluushaan si ay u helaan codka iyo mowqifka Soomaaliya laakiin madaxweynuhu waa iska diiday dalabkaasi waxaana saxaafadda adduunka ay soo bandhigtay madaxweyne Farmaajo oo ganafka ku dhiftay $80 milyan oo dawlad la yaqaano ay u soo bandhigtay. dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaalaha ugu weyn ee dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ku amaaneen waxa kamid ah inuu ka maran yahay musuqmaasuqa iyo boobka hantida ummadda Soomaaliyeed. kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxa sabab u ahaa waxaan hagaajinay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siisay in Soomaaliya la aamino mar kale oo dib loogu xiro hay'adaha dhaqaalaha adduunka. The Senate passed the formation of Anti-Corruption Committee and soon will pass the anti-corruption law. The House completed the third reading of the draft of the audit bill. We have high hopes that the federal parliament will pass both bills and will be placed before the president by year's end. We encourage all branches of government and federal member states to take measures to protect and expand integrity and accountability of the management of public finances and resources, as well as to advance the legal and institutional framework against corruption with robust enforcement and punitive measures. We'll be helping to strengthen the Financial Reporting Center, the Central Bank, the National Communications Authority. All of these play a role in addressing money laundering and countering the financing of terrorist activities. wax alla ilaahay asleeda Farmaajo waa ku fiican yahay oo positive ah waad sheegi karto wallahi de qofka bini aadanka markasta positive waa leeyahay aad ugu ma jeedo inuu indulge ku yahay corruptionka oo nin hadda adduunyo tabcanaya oo hadda inuu wax tabcado raba aad ugu ma jeedo runtii dhinacaas waa ku amaanan yahay
oo nin hadda jaanan boob oo xoolo boobaya nin u eka deertaan ma aha waxaan isleeyahay oo kaleeto nin is aruursan oo isdhowrayan inuu yahay waa ka muuqataa waxaan si dhow saaxiibadeena caalamka iyo daneeyaasha sida shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maaliyadda ee adduunka ugala shaqaynaynaa sidii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa gaarista himiladani waxa ay Soomaaliya u ogolaanaysaa inay hesho khayraad muhiim ah aadna loogu baahan yahay oo kabaya dakhliga gudaha si aan dhaqaale ugu helno halbowlaha ciribtirka saboolnimada bixinta adeegyada dawladda sida waxbarasho tayo leh iyo amni iyo in aan tallaabooyin waxtar leh qaadno si aan uga gaashaano masiibada cimilada ee mustaqbalka dib u habeynta dhaqaale iyo maaliyadeed waxaa garab socda dadaal dawladdu wado oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa si shilin kasta loogu bixiyo adeegyada dawladda haddii aan doonayno inaan cirib tirno saboolnimada inagama go'do in aan hal shilin ku lumino musuqmaasuq sidaas si la mid ah waa in aan mar kasta hubinno qiimaha lacagta marka aan bixinayno qarashaadka dawladda si taasi inoogu suurtageliso inaan ka hortagno musuqa tani waa sababta aan toddobaadkii la soo dhaafay u saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa dawladdaydana waxaa ka go'an inay dhaqan geliso si dadka Soomaaliyeed loogu daneeyo mudane madaxweyne madaxda sharafta leh wufuudda mudanayaal iyo marwooyin aan hadalkayga ku soo koobo aniga oo ku celinaya taageerada Soomaaliya ee ku aadan dadaalada caalamiga ah ee ciribtirka saboolnimada waxbarasho tayo leh iyo wax ka qabashada cimilada adduunkan la isku xirmay ee la wadaago halista iyo fursadda waa in aan dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii aan ku gaari lahayn horumar iyo barwaaqo wada jir ah hambalyo mudane madaxweyne mar kale strengthen fight against corruption, nepotism, clanism and terrorism in Somalia. Hambalyo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.